وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كاس وحوها أجاكس وستوس بشان رمضان نقول بنا channel كان جود ترتن كتو سعودي فيوجد بنا إن شاء الله تعالى إسحسوسين وحنسحسوسين دورنا ترتن كم حقيقة قبل الدكسية فرمضان لكن سده دكسية أيا أصوب بحري سده دكسية أرضي دوضة أيا أصوب كلا بحري دكسية دا سنة وحي كلا هاي نور الأبصار ابن تيمية يا شيخ رومان بعلوي مركل أدم كعليو dugsiyada usoo baxay tartanka ardaydooda wuxuu kala ahaa nuurul absaar ibnu taymiya iyo sheekh rumaani bacalawi oo intoodana waxay ku wada yaalaan degmada xamarweyne tartankana wuxuu ka dhacayay degmada xamarweyne masjid ku dhex yaala gaar ahaan koobka magaciisana wuxuu ahaa sheekh mataana insha allah waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa ardayda ku guuleysatay 30 juz saddex arday ayaa 30 juz kusoo kala guuleysteen saddex arday ayaana kaalmo kala galeen ardayga kaalinta ugu horeeya gala wuxuu ahaa abubakar ilyas axmed kaalinta koowaad ayuu ka galay 30 juz cod wala qiraa wala maxaa yiraahdaa wax walba tartan ku saabsanaa silmida waxaa soo labeysay dumar gabar aad u dadaashay waalidkeedii soo garab qabtay maasha allah markii la dhahayo dumarka ayaa tartan qur'aan kaalin fiican soo gashay wax weyn waa wallah waxay ahayd gabadhaasna najmo maxamed aways iyadan waxay u tartamay 30 juz waxayna keentay kaalinta labaad najmo silmida 30 juz ardayga saddexaad ee kaalinta saddexaad gala wuxuu ahaa maxamed cabdinaasir maxamed wuxuu aad u yar maasha allah aadna u dadaalay silmida tartanku wuxuu ahaa 15 juz kuwa u tartama ayaa jiray 15 juz kuwa u tartamayna waxay kala ahaayeen saddex qof ayaa kaalmo usoo kala baxday arday fara badan ay ahaayeen saddexda waxaa ugu horeeyay kaalinta koowaad qofka gala waa cabdishakuur maxamed aways maasha allah silmida waxaa kaalinta labaad galay cabdullaahi yuusuf cali isagana kaalinta labaad ayuu galay 15 juz ayuu u tartamayay silmida gabadha la yiraahdo ilhaan xasan cabduqaadir iyadana waxay gashay kaalinta saddexaad ayay ka gashay 15 juz tartankaasi arday ayaa jirtay u tartamaysay 10 juz iyagana waxay ahaayeen sida tan kaalinta koowaad waxaa gashay gabar ayaa 10 juz u gashay waxaana way magaceeda rifqa cabdullaahi aways ما شاء الله وحن صوم قلنا ويل اللي يرادو ها اوكي سلم اذا كانت طلبات وحا قال 8 جزء سهرة ابوكر محدين ايوه سهرة ابوكر محدين يا سلم اذا كانت سدحات وحا قال عبد الرحمن احمد علي وحقولنا ترتمي اي 8 جزء ارضي ايا جرت ترتمي 6 جزء 6 جزء كو ترتمي وحي كلا هاي عبد السلام حامد علي وكينسد سغاشن لح بومب ما شاء الله كانت كواد يو كغلay 5 juz ardaygaasi silmida suhay abbas ayaa jira silmida asagana wuxuu ka galay kaalinta labaad iyo silmida ali ahmed ali asagana wuxuu arday u tartamay 15 juz 5 juz anday aan 5 juz ayuu tartamay afwan waa ali ahmed ali wuxuuna galay kaalinta saddexaad insha allah ardayda aan soo sheegay dhan maanta waa la warin doonaa oo hadiyada la sii doonaa kala duwan iyo silmida jaaziyoona la sii doonaa iyo silmida shahaadooyina la sii doonaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad haddaan ku celiyo dugsiyada ardaydaas ay ka socdaan waa nuurul absaar ibnu taymiya iyo sheekh rumaan bacalawi intaa dugsi ayay ku kala socdaan hadduu leeba karaal noqdo haddana waxaan kusoo dhaweyn doonaa mid ka mid ah macallimiinta tartanka si toos u hayay ustaad ama mucallim ustaad حسين يوم سودبين دونا هدول اللي بكرة المقدم وكلام يرهق أكسو جينجر أستاذ حسين محمد مرسل سولو